halkan oo ah hoyga maxkamadaha kala duwan ee dalka waxaa looga hadlayay sidii loo koryeeli lahaa sharciga iyadoo qof walba uu helayo cadaalad. fadhigan waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, xeeralyaha qaranka, wasiirka cadaaladda iyo aqoon-yahanada dhinaca sharciga. shirka maanta aad baan ugu mahadnaqayaa ka sokow hay-adihii hore uga soo qaybgeli jiray iyo madaxdoodii madaxda cusub oo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka ku-xigeenka amniga ay ugu horeeyaan. waxaan rajayn doonaa in ay nagala soo qaybgeli doonaan maanta wixii ka dambeeyay xoojinta iyo horumarinta wixii tale iyo tusaale ayna siin doonaan. mas-uuliyiinta ka qayb gashay shirkan ayaa aad uga hadlay qaabka uu hadda u shaqeeyo garsoorka dalka si loo tayeeyo hay-adaha garsoorka dalka. axmed cali daahir, xeeralyaha qaranka, waxa uu qabaa in la dardargeliyo guddiga adeega garsoorka. waa laga yaabaa qofka inuu saxsan yahay oo cadaalad darro lagu sameeyey, waana laga yaabaa in cadaalad lagu sameeyey sidii uu rabay uu waayey. labadaba way noqon kartaa. ciddii marka xaqiijin lahayd arrintaas oo ka salgaari lahayd qofkaas cabashadiisa, cadaalad ma gaaray garsoorahan dhihi lahayd, la xisaabtami lahayd hay-adaha garsoorka oo dhan waa hay-addaas. waxaan codsanaynaa oon cod dheer mar walba ku weydiisanaynaa si golaha adeeg garsoorka si loo dhiso golaha kan wuxuu u baahan yahay shaqo badan in la qabto. xukuumadda shaqaa laga rabaa, baarlamaanka shaqaa laga rabaa, garsoorkana shaqaa laga rabaa naftirkiisa. dadweyne badan oo rajo ka qaba inay ku guuleystaan kiisas dacwo ayaa maalin kasta soo gaaro xarumaha maxkamadaha ku yaala Muqdisho. qaarkood waxay la kulmaan natiijooyin aysan ku qancin. wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji waxa uu sheegay in sharciga uu ka weyn yahay qof walba, garsoorayaasha maxkamadaha dalkan ay cadaalad ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed. qareennada waa inay ka madax bannaanadaan arrimaha musuqmaasuq. garsoorayaashina waa inay ka madax bannaanadaan. madax bannaanida oo hadda oo guddoomiyaha yacni noo sheegayay oo ururka qareennadana hadda noo sheegayeen, madax bannaanida garsoorka waa lagu xadgudbaa. waan aaminsanahay in ay garsoorku uu madax bannaan yahay, laakiin garsoorku wuxuu u baahan yahay in asigii naftiisa la ilaaliyo, anshaxi la ilaaliyo, cadaaladii samaynaya la ilaaliyo. madaxweynaha laga guuleystay 8 bishii Febraayo ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isbedel ku sameeyay hay-adaha garsoorka dalka. 7 bishii May maanta oo kale sanadii 2016 ayuu xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka u magacaabay Ibraahim Iidle Suleymaan. Aweys Maxamuud Jilcow, RTN TV, Muqdisho.